kulan waxaan wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijka xulashada wararka ee dalbila qodobada aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqon doona lafta gareen oo iska fogeeyay doorashada guddoonka baarlamaanka Soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo safar u ah magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug oo maalmo ka hor dagaalo ay ka dhaceen iyo ciidanka Puntland oo ku guuleystay soo afjaridda howlgalladii amni akhbaraadka dibadda qodobada aad ku daawan doontaan iyana waxaa ka mid noqon doona xaaladda dagaal ee Itoobiya oo muuqatay in marxalad cakiran ay sii galayso marka ka dambeysa muxuu yahay heshiiska ay wada gaareen dalalka Pakistan Saudi Arabia iyo sidoo kale Turkiga faafahinta ayaad kaga bogan doontaa soo dhow daawada muuqaalka like saar aragtidaada qaybta faalada ee commentiga ku dhibo haddii aad horey noola joogto ku mahadsantahay haddii aad nala joogina kusoo biirbartan oo ka mid noqon saaxiibada markasta hela wararka iyo warbixinada guud ahaan Soomaalida iyo sidoo kale caalamka hagaaga madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa safar u ah magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug halkaas oo maalmo ka hor dagaalo ay ku dhaxmareen ciidanka ammaanka dowlad goboleedka Puntland iyo ciidamada PSF ee ku jiray safka dowladda federaalka Soomaaliya socdaalkan ayaa lagu sheegay in madaxweyne Saciid uga gol leeyahay sidii markaasi loo soo afjari lahaa xiisadda iyo sidoo kale xaaladaha cakiran ee magaalada Gaalkacyo ka taagan kadib dagaaladii halkaasi ka dhacay iyadoo ujeedada ugu weyn lagu sheegay inuu doonayo booqashada xerada PSF oo uu doonayo si rasmi ah ugu wareejiyo ciidanka ammaanka ee dowlad goboleedka Puntland Saciid ayaa ku guuleystay inuu soo afjaro qorshayaashii filla Soomaaliya ee ka waday deegaanada dowlad goboleedka Puntland dhinaca kale ciidamada ammaanka ee Puntland ayaa waxa ay ku guuleysteen inay soo xirigeliyaan ciidankii hore ugu biiray safka dowladda federaalka Soomaaliya iyadoo lagu guuleystay in ciidanka danab ee Generaal Jimcaale uu hogaamiyo ay ka baxaan safka federaalka si cadna u sheegaan inaysan wixii hadda ka dambeeya aysan la shaqeyn doonin safka dowladda federaalka Soomaaliya oo si toos ah u hoos tagi doonaan maamulka Puntland talaabadan Generaal Jimcaale iyo ciidankiisa danab ee qaateen ayaa lagu sheegay inay ka dambeysay kadib wada hadallo maalmo qaatay oo lagu dhexdhexaadinayay Jimcaale iyo Saciid Dani xilli Saciid Dani iyo maamulkiisa Puntland ay ogolaadeen bixinta mushaaraadka ciidankan iyo sidoo kale saadka iyo waxyaabaha kale ee muhiimka ah ciidamada oo horey maamulka Puntland uga jartay ciidanka danab Jimcaale waxa uu sheegay inuu diyaar u yahay la shaqeynta maamulka Puntland isla markaana go'aankan ay u qaateen ilaalinta xasiloonida ammaanka iyo jiritaanka dowlad goboleedka Puntland si sare loogu qaado midnimada shacabka reer Puntland ayaa lagu yiri war-saxaafadeed ka soo baxay ciidanka danab ee Jimcaale Saciid Dani ayaa u muuqda in si buuxda ugu guuleystay dowladda federaalka Soomaaliya iyo qorshayaashii kala duwanaa ay ka lahayd deegaanada dowlad goboleedka Puntland markana dhinacaas iyo koonfur galbeed wararka naga soo gaaray duleedka magaalada Baydhabo ayaa ku waramayeen ciidanka lafta gareen dhaqdhaqaaqyo xoogan saacadihii ugu dambeeyay halkaasi ka sameeyeen taasoo isugu diyaarinayaan weerar ka dhana magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay marka laga soo dhaga dhaqdhaqaaqaasi lafta gareen iyo saaxiibadiisa waxay iska fogeeyeen doorashada guddoonka baarlamaanka waqtigiisu dhamaaday ee magaalada Muqdisho abaabulkeeda uu ka socdo waxaana afayeenka garabka lafta gareen ugaas Xasan oo duleedka Baydhabo warbaahinta kula hadlay uu sheegay inaysan marnaba qayb ka ahayn doorashadaas isla markaana cid ku matalaysa aysan jirin iyo cid ay u dirsadeen in guddoonka baarlamaanka deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya ay ku matasho lafta gareen oo bartiisa Facebook oo qoraal soo dhigay waxa uu sheegay in dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya marnaba aysan qayb ka ahayn doorashooyinka Xasan Sheekh magaalada Muqdisho uu ka wado maadaama nidaamkii dowladnimo ee koonfur galbeed Soomaaliya isaga oo si ula kaca markaasi uu burburiyay lafta gareen waxa uu sheegay in dowladnimada koonfur galbeed Soomaaliya uu ku soo duulay Xasan doorashada hadda ka socoto Muqdisho ay tahay mid isaga oo kaliya ku kooban cid koonfur galbeed ku matalaysan aysan jirin maadaama dowladnimadoodii la burburiyay meeshana laga saaray Baydhabo la geeyay maleeshiyaad calooshoodu shaqaystayaal xaaladda koonfur galbeed ayaa u muuqatay inay marka ka dambeysa ay si cakirmayso isla markaana lafta gareen iyo saaxiibadiisa wali ay ku adkeysanayaan inay yihiin hoggaanka dhabta ah ee dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya hagaag markana dhinacaasi akhbaraadka dibadda dowladda Itoobiya ayaa u muuqatay inay galayso marxalad colaadeed oo ka kan iyadoo dagaalada ka soconaya gobolada Tigreega iyo Amxaarada marka ka dambeysay xaalad adag sii galaya xilli gacanta ay ku dhigeen xogaga TPLF boqolaal kun oo askari oo ka tirsan ciidamada militariga Itoobiya muuqaal lagu baahiyay barteegtiisa Twitter loo garan jiray ayaa waxa ka muuqanay kumanaan askari oo ciidamada militariga Itoobiya kuwaas oo si raxan ay u wadaan xogaga TPLF oo sheegeen maxaabiis ahaan ay soo qabteen intooda badan halka kuwa kalena ay si iskooda isugu dhiibeen xogaga TPLF kadib markii dagaalo baan oo ka dhacay gobolka Tigreega ay ku adkaatay inay wajahaan xogaga TPLF waxay sheegtay inay dagaalka sii wadi doonaan ilaa meesha ay ka saaraan nidaamka kaligii taliye Cornel Abiy Ahmed oo ay sheegeen inuu xadgudubyo iyo dhibaatooyin ku haya shacabka Tigreega isla markaana awood xad dhaaf ah uu adeegsanayo gobolka oo uu doonayo in gabi ahaanba uu dhulka la simo isla markaana uu tirtiro jiritaanka qowmiyadda Tigreega sida hadalka ay u dhigeen
dhinaca kale dalalka Sacuudiga iyo sidoo kale Pakistan iyo Turkiga ayaa gaaray heshiis taariikhi ah markii ugu horeysay taariikhda waxaana ay noqdeen saddexdii dal ee Islaami ugu horeysay awood leh isla markaana ku heshiiyay heshiis difaac oo midaysan oo dhinacyada midba midka kale haddii lagu soo duulo uu ku difaaci doono muxuu yahay heshiiska dalalkan ay gaareen ay dad badan warbaahinta markaasi iska weydiinayeen heshiiska ay gaareen Pakistan Turkiga iyo sidoo kale Saudi Arabia ayaa waxa uu ka dhigan yahay in midba midka kale uu faa'iido weyn markaasi uu ka heli doono faa'iidada ugu weyn marka laga hadlayo dhinaca difaaca waxa heli doona dalka Saudi Arabia kaas oo aad markaasi u liita dhanka awoodda militariga waxaana uu ka heli doonaa dalalka Turkiga iyo sidoo kale Pakistan oo iyagu markaasi leh awoodo kala duwan Pakistan oo ku hubeysan hubka nuclear-ka ee sida daran wax u kumal iyo Turkiga oo ku hubeysan diyaarado dagaal oo tiknoolajiyadii ugu dambeysay ee dunida sida weyn markaasi loo xiiseenayo haysta Sacuudiga dhankiisa waxyaabaha ay ka faa'iidi doonaan dalalkan waxaa ka mid ah dhaqaalaha maadaama Sacuudiga uu yahay mid ka mid ah dalalka khaliijka kuwa ugu soo wax soo saarka badan dhanka saliidda iyo gaaska waxaana la sheegay in heshiiskooda uu yahay mid wax weyn ka bedeli doona juqraafi siyaasadeedka midka amniga militari ee gobolka bariga dhexe guud ahaanba qodobadii wararkeena ugu waaweynaa saaka ee dalbilaad ka daawanayseen wanaagaynta tan inta midkiisa xiga isku arki doono waxaan kaga tegnaa saasi nabadgelyo muuqaalka like saro si shirkay